الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. waxaynu ku jirnaa bishii Shacbaan. maxaa sunnaa maxaa bidcaa bisha dhexdeeda intaynu baraarujinayna waa intaas weeye. shan arrimood oo dhacdooyinkii waaweynaa ee bishan taariikhda islaamka soo maray, iyo shan arrimood oo sunnaa, iyo shan arrimood oo bidcaa. intaasaynu baraarujin lahay waqtiga kooban insha Allah. bishan sanadeedii labaad ama sanadkii labaad aan idhaahday hijrada, bishan Shacbaan, waxyaabii axdaafta ahaa ee taariikhda islaamiga dhacay waxaa ka mid ahaa taxwiilu lqibla. waa arrin taariikhda la xidhiidho culamaadu taariikh waqaa'ic waxyaabii dhacay markay ka warramayaan ay kusoo daraan macluumaad guudna kuu noqonaysa. qiblada oo la soo bedelay oo xaggaa markii hore waxaa loo tukan jiray baytulmaqdis, waa laga soo bedelo kacbada qaabila baa ilaahay iyadoo ilaahay uu ku amray rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ummadda islaamka had wal oo ay joogaanba: qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha. ummaddana saasuu ilaahay amrayo waxau ihi fawalluu wujuuhakum waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra. meel kastoo adduunka ka joogtaan xaggaa kacbada wejigiina u jeediye. 16 bilood ama 17 bilood baa loo tukanayay. ilaahay saasuu faray, sidii baanaynu ku soconnaa. waxyaabaha bishan ilaahay uu waajibiyey waxaa ka mid a sanada labaad ee hijrada, soomka bisha ramadaan iyo sakaat fidriga. labadaa faradoo isa saara Shacbaan baa la waajibiyey. waxaa kale dadku aad ugu farxeen bisha Shacbaan, awalu mawluudin fi lislaam fi daari lhijra. markay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu u hijroodeen madiina, ticaadii yuhuuddu ay faafiyeen waxaa ka mid ahaa muslimka waanu sixirno wax dhalayaaba ma jiraba, sixirlana beenunbuu faafiyaa. asxaabigii ugu hor dhashay dadkii soo hijrooday siiba wuxuu ahaa cabdullaahi bnu zubayr oo asmaa bintu abi bakr radia allaahu canhu ay dhashay. sanaddaa labadii bishii sanadkii labaad bishaa Shacbaan labadeedii buu dhashay. waxaa ka mid ahaa axdaafta iyo dhacdooyinka Shacbaan maqbarada ama xabaalaha baqiic ee markaynu xajka iyo cumrada aynu tagno aynu soo siyaaranno ee masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka agdhow. sanadkaasaa ummadda uu nebigu u jideeyay in halkaa ay noqoto maqbaradii iyo xabaalihii muslimiinta. isla bishaas baan leeyahay Shacbaan oo sanadkaasa asxaabigii ugu horreeyey lagu aasayna wuxuu ahaa Cuthmaan ibnu Madcuun oo nebiga qaraabo ahayn calayhi salaatu wasalaam. Shacbaan sanadii shanaad waxaa dhashay inankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam awowga u ahaa alxuseyn ibnu cali ibnu abi aalib radia allaahu canhum wa ardaahum, oo nebiga inantiisu ay dhashay. isla sanadkaa shanaad waxaa dhacay dagaalkii cuslaa ee taariikhiga ahaa ee la odhan jiray ghaswatu bani lmusdaliq. axdaafteeda inta hore wakhtigii nebiga kuayaalay dhacay kuwaasaa ka mid ahaa. waxyaabaha sunnaha bisha, qofkii awoodu haya ee soomi kara waxa sunnaa inuu soomka badsado, inuu soomka bishan Shacbaan uu badiyo haddii awooddu iyo duruuftu ay u saamaxayso. taasina waxaynu kaga dayanaynaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay nagu addoonsaday inaynu kaga dayanno sunno iyo faralba iyo dhaqanka diinta. caaisha waxay leedahay: lam yakun الnabiyu salى allahu calayhi wasalam yasuumu shahran akthara min Shacbaan fainahu kaana yasuumu Shacbaana kulah. xadiidkii saxiixayn. bisha uu nebigu ugu soom badnaa Shacbaan bay ahayd. riwaayanka qaarkood waxay tilmaamayaan uu ugu soom badnaa, qaarkoodna waxay sheegayaan dhammaan wada soomi jiray. maalin maalmaha ka mid ah waa xadiidka labaade
أسامة بن زيد با ويدي رسولك صلى الله عليه وسلم وحاول وحن كو أركا إناد آذو بديسة صومك بشان شعبان محا سببه رسولك وحو كو جوابي صلى الله عليه وسلم بشان يدا إلهي با الله كريا عملك ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عملك عملك أدومها إلهي لو قد بيا فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم waxa aan jecelahay camalkayga in ilaahay loo gudbiyo anigoo sooman oo warbixintaydu Allah u tagto waxa markaa culimadu ay isweydiiyaan xigmadaha ku jira inuu nabigu bishan shacbaan badin jiray soomka sunnaha maxay tahay ila kullayba ramadaan baa soomkeedu waajib ah bilaha marka shacbaan muxuu u badin jiray saddex xigmadood bay culimadu ku sheegeen midi waa taa aynu arkayna inuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay camalkiisii in la kori camalka addoomaha in la kor yeelay uu jecel yahay inay isku beegmaan camalkii oo ilaahay loo qadimay iyo anigoo sooman ama addoonkii oo sooman midda labaad waxa weeye xadiidka laftiisa qaybta hore nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam addoomuhu inay qaflad galaan oo bisha rajabna ay cibaadaystaan bisha ka dambaysana oo dee rajabna muxaram waxay waa bilihii ashhurul xurumkaa xurmada lahaa ramadaanna waa bishii cibaadada sidaa daraaddeed taasoo xurmadeeda ay dhowrayaan oo camallo badan oo cibaado ay sameeyaan iyo ramadaan oo iyana fadli siyaadaa leh labadaa dhexdooday ku jirtaa markaa qaflad baa ku dhacda addoomaha camalka ay fudaydsadaan sidaa daraaddeed qafladaasaa naftayda ka saarayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam dalika shahrun yakfulu nnaasu canhu bayna rajabin wa ramadaan marka qafladaasi uu addoonku isaga ilaaliyo marnaba cibaadada aanu u daynin ilaa wakhtigiisii oo dham wuxuu uga faa'iidaysan karayaa addoonku cibaadada waxaana la ogsoon yahay wakhtiyadaa dadku qafladda ay galaana cibaadada aanay ku baraarugsanayn camalka la sameeyaa aad buu fadli badan yihin waxaa kaloo ka mid a xigmadaha waa tawti'atu liramadaan liyakuuna alyana liadaa'i asaalixaati fii ramadaan naftii baa lasii carbinaya qofku marka la doonayo inuu dagaal galo dagaalkaasina culus yahay dadaal baa ka horeeya iyo tababar dagaalka ramadaan nafta iyo shaydaanka lala galaya aad buu weyn yahay markaa qofkii inaanu iska soo kicinuune ama aanu iska soo toosin markay ramadaan bilaabmaysee isagoo dugsigii tababarka soo maray oo naftii soo carbiyey oo soomka ramadaan sida hilaaca ku maray u fudud yahay inuu soo galo weeye ramadaan oo markaa waa carbin xagga nafta ah